السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى waxaan weydiisanaynaa insha Allah taala barnaamijta aan soo wadno inuu Ilaahay jalla jalaaluhu miisaanka xasanaadka dhamaanteen inoo wada saaro ka dhigana mid maaragtay insha Allah taala anagana anfici doona dad kale insha Allah taala anfici doona walaalayaal barnaamijkan waxaan u bixinay ama taariikhdan kooban insha Allah taala waxaan u bixinay khayru nisaa'il caalamiin dumarka kuwada ugu khayrka badan baan insha Allah taala waxaan rabnaa in aanu ka hadalno laakiin su'aasha mudan waxay tahay in isweydiin waxay tahay dumarka kuwa ugu khayrka badan waa kuwee hadalkan ayaa yiri walaalayaal nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xadiis sugan oo uu warinay Anas bin Malik radiyallahu anhu ayuu yiri Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayru nisaa'il caalamiin 40 dumarka kuwa ugu khayrka badan waa 4 كدبنا صلى الله عليه وسلم كوحة ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران لوا وحيري وآسيتي امرأة فرعون آسيو وهيد هوين إذا ما حاسكوا قبل فرعون عليه من الله ما يستحق تدح لما صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد أن ما أنتنا أن وذكرن أم المؤمنين في ذلك لا أفر نبي محمد صلى الله عليه وسلم هوين الأفراد وخير كبدن عالمك وحواي وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مركا وفاطمة العذراء أو قرنين العذراء ولا ليال وحرم إن شاء الله تعالى حلقوين كان سوى في كوبا إن ندول مرنو تاريخ هذا لأن حقيقة وقت ما أنت هنتشوفنه وحان سيري قبلها وحي أباهين إن أي واحد بدن أي كبرتان دتك يكون ديال لهين دومك هو وشرفت بدن لأن ما أنت عالم يكون والله يحاول دتك معناه قف والبوح بقف بكودي ذا لكن دتك وخير كبدن الوجود ذنا وقوة دتك مارتك هو ونكسن مركا إن شاء الله تعالى حلقة كواد وحنربنا إن شاء الله تعالى إن كهذا النوم مريم بنت عمران هو ذي متقانا لشيء عيسى عليه الصلاة والسلام والنبيها مريم ولا لياسات أكتين غير كذا متقانا عمران أما آل عمران إله سبحانه وتعالى آيات معنا قرآن سورة ننبو وقوم عدله سورة نن أيو وقوم عدله مركا أنت أنا نوحير أيضا تاريخ قصيدة أنا بالله قابن ولا ليال سؤال مضان حيتها هي سببتها مروا بأن وجعلنا هي إن تاريخنا كهذا اللو محان وكلف إن تاريخنا مروا بأن كهذا اللو وأنو جذال قلنا قلنا أن فيرين ودتك أنا جنا جوهري ونكسنا سيدي أهين maxaan ugu dayan karnaa oo waxaan wax wanaagsan walaal Allah subhanahu wa ta'ala quraanka uu nagu cadeeyay wuxuu yiri laqad kaana fi qasasihim ibra qisooyinkooda iyo sheekadooda waxa ku jiro ibro waana qaadasho qofka markuu sheekadooda akhristo ama uu dhageysto wax badan baa ku baxay lianna maanta hadaan ku yiraahdo wax samee oo aan ku yiraahdo arrintan samee waxa laga yaabaa arrintaas in aad magaranaysaa inaad marka hore raadisid war arrintan yaa hore u sameeyay hadii ay markii arrintaas qof hore u sameeyay waxa ku fududaanaysaa meesha aad u socotay jidkii aad rabtay meeshii aad rabtay inaad aadid way ku fududaanaysaa inaad arrinta qabato salahan safar baratay inaad u baxdid safarkaagi hadii lagu yiraahdo waxa rabtaa magaalada hebel aad marka hore waxa la magaalada yaa maray dad ma mareen mintaqana marka hadii qof uu aniga waa maray jidkaas waxa leedahay ka waran laamiga malaami fiican ba buurma leedahay جيتو سمية أرض ملوش عن كلام الترتيب ما قفكم هو كوشة وحكولة ما هي مركز مرسيد وأنا دجاري الله قوتي مركز قفكم حكوش شيء يا وحياويه متقانا كوف ظلنا سفر كاجي مركز شيكاdas أما قصص أما تاريخ ده ومريه هدوك وعشة كيو واحد بدن بقوب بحياة مركز سيرك الولا ليه تاريخ ده مركز أنا خرسانينه واحد بدن بنوع بحياة إله سبحانه وتعالى القرآن كان أنت وجب بدن إله سبحانه وتعالى وقال ليه تاريخ صابنا بحياة هاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إله حقوقها رجال أمديسا مركز نبي محمد وقته جون ولا أمديسا قداش تيمان دونا إن أي وحكبرتان أمديه إيه كوري لأن إله سبحانه وتعالى وحاول ودد خير وبدن أو وناكسب ونقشكي سيدوك إله سبحانه وتعالى أمد وهلاجب ونقشكي سببه الله هلاجنا إله سبحانه وتعالى نوع عدي سببه كل اللي باننا سببه كل اللي باننا إله هو نوع عدي مركز جدك وعدي هاي معناها جدك دتك اللي بانا دانو قاضي إنه أنا جوال اللي باننا jidka kuwa xun oo macnaha jidka Ilaahay ka leexdana aan qaadano kuwaasna waxaan qaadanaa waxaan raacinaa meeshay ku dhaceen ama aadeen baan ku dhacinaa soo fahmay
marka walaaliya insha allahu tacaala tan waxaa waa muqadima, waa bilow. waxaa laga yaabaa inay mataqaanaa barnaamijka uu socdo taqriiban 7 ilaa 8 daqiiqo insha allahu tacaala, ka badin maayo insha allahu tacaala. marka maraan binti Cimraan haddaan shaqadii qisadan gadaal u noqon walaalayaal, ilaah subxana wa taala qur-aanka inagu caddeeyay. hooyadeeda oo lagu macdaraja la dhihi jiray Xana ayaa waxaa waye walaalayaal waxay aragtay lana qisada waxaan rabaa inaan soo koobo faa'iidada aan ka heli karnana hore aan ka ogal baxno. hooyo wanaagsan bay ahayd. waxay arki jirtay ay dad dhalayaan, dad ilaahi subxaana wa tacaala inta caruur siiyey, oo kadibna caruurtooda ay geysanayaan baytulmaqdis, oo masjidka baytulmaqdis oo mataqaana dadkii wanaagsanaa caruurtooda meesha geen jireen si ay mataqaanaa ay de meesha u shaqeeyaan. marka waxay jeclaysatay allah haddaan anigana wax ilaahay wax isiin lahaa, waxaan samayn lahaa cunugeygii ilaahi subxaana wa tacaala baan siin lahaa, oo magaranaysa xaggaas baan u diri lahaa. marka ilahi subxana wataala wuxuu nooga soo qaada marka qisadeeda iyo eryada ay tiri. ilahi subxana wataala aayaddaas fi suurati mataqaanaa walaalayaal Cimraan, allah jala jala wuxuu leeyahay in allah astafa aadama wa nuuxan wa ali ibrahima wa ali cimraana cala alcaalamiin ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت halkaasaan ka bilaaban. إذ قالت markay tiri imra'atu Cimraan xaaskii markay tiri rabbigeygii innii anigu nadartu laka maa fii batnii muxarara. arrinta ka hor markay jeclaysatay marka in ay uur yeelato waxaa la yidhi ilaah subxaana wa tacaala waa u aqbalay. marka ilaah subxana wa taala uur buu siiyey. marka waa kan waxay leedahay ilaahayow uurka maantaad i siisay oo caloosheeda ii gelisay, ilaahay waa kuu nadray, waxaan nadray wixii caloosheeda ku jiro, ilaahay waxaan u nadray inaan jidkaaga u bixiyo. haddii wiil uu noqdo ama uu gabar noqdona ilaah jalla jalaal jidkaagan baan rabaa in aan u bixiyo. rabbiyo fataqabbal min, ilaahayo iga aqbal, innaka adiga anta as-samiicu al-caliim. kadib ilaah subxana wa taala markay qur-aankii aayad dib u noo soo wuxuu yidhi فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. markii ay dhashay waxay dhashay in uu yahay ama ay tahay gabar. marka waxay tiri yaa allah rabbigaygiyo ilaahayow waxaan dhigtay ama aan dhalay mataqaanaa gabar. wallahu aclam bima wadacat. haddana iyadaad baas la hadasho waxay tiri ilaaba goorba ilaahi subxaana wa tacaala waa la socdaa, wuxuu og yahay wixii aan dhalay. macnaheedu halkaas maxaa laga wadaa? waqtigaas dadka u shaqeyn jiray mataqaanaa masjidul aqsa oo diintan u shaqeyn jiray yay ahaayeen dad rag bay ahayn. marka iyadu waxay isleedahay wiil buu ilahi subxana wa taala ku siin doonaa, laakiin ilaah jala jalaalu waxaa yahabu liman yashaau inaathan wa yahabu liman yashaau dhukuur. soo ma fahmi? ilah subxana asaa wax bixiya, qaarna wuxuu siiyaa gabdho, qaarna wuxuu siiyaa wiilal, qaarna waxaa yajcalu man yashaau caqiima. ilahay qaarna wax maba siiyaba oo wax ma dhalan buu ka dhigaa. soo fahmi? waa qadarka ilahi subxana wa tacaala, waa maqaadirta allah subxana wa taala. saas ogeeda waxaad ku ogaanaysaa dadka ilahi subxana wa taala wax ku arsaqay waxaa la rabaa inay ku sabraan oo ay magaranaysa ilaahay baryaan, ilaahay carruurta inoo sahal. sidoo kale kuwa ilaahay wax siinina inay dhahaan ilaahay waxaa waaye khayr hadday inoo tahay ilaahayna sii, haddii shar ay inoo tahayna rabbi raxmaano naga badbaadi. walaali waa xalaqadii koowaad insha allahu tacala. mana rabo inaan idinku dheereeyo, laakiin qisadii waa bilaaw. insha allahu tacaala waxaan sii bilaabi doonaa qisadii oo socota, oo dee insha allahu tacaala ha maqnaanin hana mogaanin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.